nabadda odayaal mar kale kusoo dhawaada bogga youtube-ka ee waarya channel oo aanu idinku soo gudbino mahad madadaalo aqoon iyo cilmi baarisyo saynis intaba. haddaba waxaynu kusoo qaadanaynaa qeybteenan 4 qodob oo keenay afgambigii maxamed mursi. doorashadii maxamed mursi ee 30 Juun 2012 waxa ay argagax gelisay cid kasta oo saaxiib markaasi dowla ahayd maamulkii hore ee kaditariska ahaa iyo dowlada kaleba. waayo Masar waxaa loo arkayay in ay ahayd awood carbeed oo ku taala goob halbowle ah isla markaana haysata shacab aad u aqoon badan iyo taariikh aad u miisaan weyn. haddaba 4 qodob ee soo socda ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen 4 qodob ee keenay in maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka Masar ay abid u doortaan xilka madaxtinimo laga qaado sanad kadib markii la doortay. qodobka koobaad, mursi waxa uu taageero aad u ballaaran ka helay dalalka carabta ee khaliijka iyo kuwa kaleba. kacdoonadii dhacay ee kasoo bilaabmay Tunis ee loo bixiyay guga carabta iyo mudaharaadadii markii dambe u soo wareegay dalka Masar waxa ay ku dhiirigeliyeen dalalka kale ee carabtuna inay samayn karaan kacdoon si ay iskaga qaadaan markaa heeriyada kalitaliska. haddaba dalalka sida xoogga leh uga soo horjeedsaday isbedelada bilaabmay waxaa ka mid ahaa dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadka Carabta oo iyagu aad ula dagaalamayay iyo markaasi isbedelada carabta ka bilaabmay, waayo waxay u arkayeen boqortooyooyinka ka taliya labadan dal in ay halis ku tahay jiritaanka boqortooynimadooda isla markaana mudaharaadadu ay u soo gudbi karaan dalalkooda. sidaa darteed dalalka Sacuudiga iyo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku waxa ay xoog kasta isugu geeyeen sidii ay xilka uga qaadi lahaayeen maxamed mursi una fashilin lahaayeen kacdoonka shacabka iyo baraaruga ka dhashay markaasi dalalka carabta iyo guud ahaan bariga dhexe. 2, Masar waxaa la sheegaa in ay ku tiirsanayd mucaawinooyinka reer galbeedka taas oo markaasi xayiraad iyo xanibaadba ku ahayd noloshooda. Dr. maxamed mursi markii la doortay waxa uu bilaabay olole ka dhan ah markaasi deeqaha iyo gurmadka ay dadka reer galbeedka ee Mareykanka iyo dowladaha kale ay markaasi ugu deeqaan dalka Masar. maxamed mursi waxa uu ku dhawaaqay war aan laga jeclayn dowladaha markaasi iyagu gacanta sida aan dad banayn ugu haya dowladda Masar ee markaasi ugu deeqa raashinada iyo wixii kale ee dhaqaale ah ee dalkaasi markaa ku shaqeeyo. waxa uu sheegay mursi in Masar ay la soo baxayso cuntadeeda, in Masar ay samaysanayso hubkeeda. sidoo kale waxa uu sheegay warar aan aad ugu wanaagsaneyn markaa cid kasta oo arrintaasi markaasi dabada ka riixaysa oo ay ugu horeyso dowladda Mareykanka iyo xulaafadeedu. wuxuu ku dhawaaqay mid ka mid ah khudbadii ugu xasaasisanaa oo ahaa لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا. اللهم ارزقنا الخير وارزق هذا الوطن الخير وبارك له فيه. qodobka saddexaad ee loo tiriyo in uu sabab u ahaa xilka qaadistii iyo afgambigii military ee ku dhacay madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar ay doorato Dr. maxamed mursi waxa uu ahaa in uu si toos ah ugu dhawaaqay in Falastiin iyo Gaza aan la go'doomin doonin kaligoodna aanu ka tagi doonin. waxa uu uga hadlay arrinta Gaza iyo Falastiin si ka duwan sidii markaas madaxda carabta ay uga hadli jireen ee aadka u hooseyn jirtay. arrintan ayuu Dr. mursi taageero aad u ballaaran kaga helay dadweynaha ku dhaqan Falastiin iyo guud ahaan caalamka muslimiinta. arrintan ayaa iyaduna markaa halis gelinaysay oo halis ay u arkeen dowladda Israa'iil iyo xulaafadeeda reer galbeedka u badani, taasi oo markaa iyaguna bilaabay dadaalada lagaga qaadi lahaa maxamed mursi xilka uu ku joogo. qodobka 4 ee u dambeeya waxaa la sheegaa maxamed mursi inuu ahaa nin dhiiran oo cadowgiisa aan u joojin. khudbadihii ugu horeysay ee uu ka jeediyay qaramada midoobay iyo khudbado kaleba waxaa la sheegaa in uu ku bilaabi jiray quraan, salli nabi iyo dikri aad u fara badan isaga oo aan markaa cidna ka haybadaysanayn. iyadoo oo 50 dowladeed wax ka badan oo muslimiin ah ay ka qayb galaan shirka qaramada midoobay markii ugu horeysay ayuu dikriga iyo salliga nabiga si weyn uga akhriyay meesha ninka loo yaqaano Dr. mursi. khudbadaha lagu xasuustana waxaa ka mid ah allaha u naxariistay ee madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka Masar doortaan ee uu qaramada midoobay ka akhriyay sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. haddaba qodobadaas ayaa la sheegaa inay ahaayeen sababtii ugu weyneyd ee doctor maxamed mursi looga qaaday xilka islamarkaana loogu adeegsaday mid ka mid ah dadkii uu magacaabay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ahaana taliyihii ciidanka markaa militariga masar genaraal sisi, kaasi oo madaxweynihii ay shacabku doorteen sanad kadib markii uu taliyey ku hubsaday markaasi jeelka. 40 qodob ayay dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha bariga dhexe iyo kuwa carabtuba kusoo ururiyaan inay ahayd sababihii keenay in mursi xilka laga qaado. qaybaha soo socda waxaaynu kusoo qaadan doonaa 5 qodob hareereysnaa dilkii masar loogu geystay mid ka mid ah xabsiyada ku yaala dalka masar. inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa ammaana alla iyo ismaqal dambe oo xiiso leh iyo bahda Waarya channel oo idin leh. ha ilaabina inaad tiraahdaan